بسم الله الرحمن الرحيم وسهريان يوم مقال عصب مقال كان maanta waxaynu kusoo gudbin doonaa fursad u gaar ah haweenka ganacsatada ah fursadan waxaa la yiraahdaa ama abaalmarintan The Cartier Women's Initiative Awards 2022 waa abaalmarin sanadle ah waa barnaamij lagu horumariyo haweenka ganacsatada ah ujeedkiisu waxay tahay in la awood siiyo oo la dhiso ganacsiyada yaryar ee ay dumarku hogaamiyaan ama ay dumarku leeyihiin abaalmarintan 7 region ayaa la rabaa sanadka dumar ka soo jeeda oo ganacsatada inay ka qayb galaan 7daas gobol waxa ay kala yihiin Latin America iyo Caribbean-ka, North America, Europe, Sub-Saharan Africa, Middle East and North Africa, East Asia iyo South Asia iyo Ocean-ka. Marka maadaama inagu aynu ka mid nahay Sub-Saharan Africa sidoo kalena ay jiraan dumar Soomaaliyeed oo dhalasho jinsiyada kala sita oo gobolada kalena ganacsiyo ku leh waxaan ku boorinayaa in la gaarsiiyo gabadh kasta oo ganacsato oo Soomaaliyeed oo aad garanaysid fadlan haddii aad muuqaalka daawanayso isku day inaad gaarsiiso si ay u codsato waxa laga yaabaa inay habla Soomaaliyeed oo dhowr ku guuleystaan taas baan inoo ah guul dhamaanteen waayahay barnaamijkan waxaa la ogol yahay inay codsadaan ganacsiyada faa'iido u jira inay soo saaraan faa'iido waxa kale oo la rabaa ganacsigaasi inuu yahay early stage 5 sano ugu horeysa inuu ku jiro 5 sano ganacsigii dhaafay ma aqbalayaan ama ma codsan karo ganacsigaasi waa inuu 1 sano ugu yaraan faa'iido soo saaray oo uu shaqeynayay ganacsigaasi waa in dhaqaalihiisu kooban yahay oo aanu soo saari karin lacag $2 milyan ka badan inagu ma lihin ganacsiyada saa waaweyn marka waxa la rabaa waa ganacsi yar oo small business ah ganacsigaasi waa inuu xiriir la leeyahay saameyntiisu 17 yool ee horumar waara ee qaramada midoobay u yaala 17 yool maadaama ay fursadaheena ku soo noqonayaan insha Allah muuqaal gaar ah ayaan kaga hadli doonaa marka 17 yool waynu ganacsigaas xiriir la leeyahay ganacsigaas leadershipkiisa ama hogaamintiisa waa inay gabadhi hogaamisaa ama sheerka ugu badan ay leedahay ganacsigaas waa inuu qofka hagaya ama cidda lehi ay 18 jir ka weyn tahay ahaan cidda soo codsanaysa ganacsiga ma tali doonta waxa laga rabaa luqadda Ingiriiska qoraalka iyo ku hadalkaba inay si fiican u taqaano barnaamijkan hal sano soconaya haddii qof ku guuleysto halkaasna qofka waxa laga rabaa uu yaraan 4 saacadood inuu weegiiba hayo oo uu tababar online kaga qayb galo waayahay 7da region mid walba 3 qof ee ugu fiican baa laga soo xulanayaa ama 3 ganacsi ugu fiican 7da ugu sareeya oo ah region walba halka ganacsi ugu fiican waxa uu heli doonaa $100,000 oo maalgelin ah 14 ka soo haray oo ah kaalmaha labaad iyo saddexaad 7da region waxa uu qofkiiba heli doonaa $30,000 oo abaalmarin ah ganacsiga waxa laga caawin doonaa inuu dhiso shaqaalihiisa aqoon ahaan oo capacity building ku sameeyo waxa laga caawin doonaa socialka ama dhinaca bulshada inuu xiriir fara badan u yeesho oo kala duwan inuu media kala duwan uu ka soo muuqdo oo heer caalami ah waxa kale oo la rabaa ganacsigaas inuu dokumentiyadiisa sharci ay tahay mid aad iyo aad wanaagsan oo sax ah qof waxa uu buuxin doonaa online application buu buuxin doonaa linkiga laga codsanayo commentiga ugu horeeya ayaan kaga tagi doonaa ama ku dhaafi doonaa online application-ka marka aad buuxiso su'aalaha ku qoran ka jawaabto halkoon baad iska soo duubi doontaa markaad codsanaysid oo aad ganacsigaaga kaga sheekeynaysid iyo su'aalo meesha ku qoran aad kaga jawaabi doontid wixii xog dheeraada linkigaad ugu tagaysaa deadline-ku ama goortu xidhmayaan waa 31 July bisha dambe 2020 ayuu xidhmayaa marka guul fiican baan idin rajaynayaa waxaan rajaynayaa in hablo Soomaaliyeed ku guuleystaan fadlan gaarsiiya hablaha Soomaaliyeed